السلام عليكم soo dhawaada maanta waxaan barayaa ilmaha tooyadooda markuu hargabku ku dhaco ka dambe in la dhaqo waxa lagu dhaqi lahaa oo lacag kaaga baxaynin baan maanta rabaa inaan la waraago dadkaygii Soomaaliyeed oo anigu ka dhashtay oo Ilaahay qadaray inaan anigu ka dhashto dhaxdooda iyo dhulkaygii hooyo dadkii ku noolaa cunuga hargabku markuu ku dhaco sida kuwa awoodi karo lacagta haysto oo soo gadan karo iyo kuwan soo gadan karin inaan la wadaago sida ilmaha loogu dhaqo bahalada alaabada ay ku ciyaaraan sida hargabkii ugu soo noqon oo cid dhan hadana ayna loogu ridin oo qof walba uu ka fadhiisan ma sha Allah soo dhawaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh walaalaha islaamka dhan soo dhawaad ma sha Allah waxaan soo qaatay bahalkan biyo qandacaan ku shubanayaa waxaan soo qaadanayaa liintii oo soo miirtay waxa iga raali ahada soo qabta aan tusi bahalka liintii waan soo qaatay bahalkan baan soo gatay sahalka Soomaaliya waa laga helaa hooyooyinkan ragooda ugu miiraan liinbambeelada subaxdii ilmaha laakiin uguma miiraan qaarka ragga caabudo baa sameeyo ama Ilaahay dartiis ajar uga raadsanaya sameeyaan liinbambeelada bay ugu miiraan ragga subaxdii laakiin ilmaha wax ma laga siiyo cunuga yar oo u baahan fitamiinka sida aniga Allah ay tusay sida arkay Allah yaclam adiga sida aragtay so do not get upset haddaad ka gubanaysid taas so halkaasaad ku miiri liinta juuskii baad kala soo baxaysaa biyo qandacad ku shubaysaa cusbaad soo qaadanaysaa 2 qaad oo cusbaad ku shubaysaa fixisada bahasha fixisada la dhaho oo cad mid cad ayada laba kala midna waa brown midna waa cad mid cad soo qaadanay inta ku shubay biyo qandacaha fixisadii cusbadii iyo liin dhanaantii saddexdaas jeermiskay dilaan hadii aad saddexda haysan biyo qandaca iyo Dettol oo ka soo gadanayso pharmacy-ga ama dukaamada qaar lagu gada Soomaaliyan waxa lagu gadi jiray pharmacy-yada dukaamadana qaar hadda way keeneen Soomaaliya ma sha Allah ayadoo caag weyn ku jirto bay keeneen so marayar baad soo qaadanaysaa saasaad uma joojini waad ku tirtiri markaad ku tirtirtid geeskan ilaa geeskan soo sasma haddii cunuga markaas uu ka hurdin uu rabaa bahalkii hadiiba waxaad soo qaadanaysaa because inuu ku ciyaaro uu rabaa ha ka xamirin bisi ha ka dhigin bahalka like suu ugu ciyaaro rabaa soo ka tirtir ugu celi meeshiis u qalaji ugu celi meeshiis saas jeermiskiina wuu ku dhintay cunugiina caafimaad buu ka helayaa jeermiskii wasaqdi oo waliba wuxuu kaaga baahan yahay marmarka qaar kuwa ma aragtay meelaha la qabsado kale waxay kaaga baahan yihiin ina xoog u qod because wuxuu ku qabanayaa cuntadii ama wax buu ku qabanayaa normal way dhibsanin cunugaal inuu cuntada la soo socdo because ilmaha cunto diidka waxay ka bilaabataa hadii cunuga lagu qasbo inuu hal meel kaliya uu la fadhiyo cuntadii uu markiisa horena u dhashtay inuu cunto diid yahay cunuga markuu aragtid inuu cunto diid meel walba waxa barataa cuntada qalalan iyo cuntada qoyan oo ilmaha la soo caafimaadka labadaba kala baro cunto qoyan waxa jirto sida hadda rootiga oo kale oo butter yar waxa u marinaysaa subaga yar ariga wadamadaana laga dhaho butterka Soomaaliyeena yaalo subaga yar baad sida ugu daadini and then waxaad u marini wax macaan hadaa wax macaan u weydid subaga yar ba nafaqo u noqonayo waa dadka qaar waxa aaminsan saliidu inay noqon laakiin saliida kala midda ka timaaday xoolaha mar walba healthy way si kasto company-ga uu kiimiko baalki uga soo dilo nuxurka wili way dhaantaa midda kale oo geedaha laga keenay way dhaantaa
so saasame iyo bahala yararo buskudka macaan waliba uma fiicna ilkahan uu ka dilay sokorona ku rid buskudka qalqalalan ayaa u fiican hadii aad Soomaaliya joogtid raadika so markaad Europe joogtid waad awoodaa supermarketka intaad tagtid cunugaada inaad u soo qaadid cuntada qalalan iyo cuntada qoyan cuntada qalalan waxa kamid ah fruitkii cagaarkii iyo briiskii iyo baastada labadaba loo baahan yahay so markaad briis iyo baasta aad karisay waan ogahay hooyo Soomaaliyeed ma haysatid aaba garab ku siinay oo la taag aabayaasha kale oo islaamka ayagoo shaqaysto bay ilmahooda wax ka korsadaan ilmahooda iskuulka soo qaataan waa ogahay inaa nasiib daro kugu dhacday oo gabar yahay aad haysatid aad guursan doontid aad la kulmi doontid aaba qumanihiisa qoorta ugu jiro oo shaqadii lacagtu keenay kaliya u maleeyay ubadkiisa reerkiisa korinayo marka waxaad samaysaa awoodaad waxa awoodo markaad sii karinaysid cuntada bariiska inta cagaarka dhaqdid dusha ka saar bariiska dawoolku saas ku karsamaya uumigaas ku baxay bay cagaarku ku karsamaya cunugii ma yahay marka cagaarka dib waxaad ku sameynay waxaad ag dhigaysaa bariiskii baastadii baad ag dhigaysaa cagaarkii geedkii cagaarka oo adigu aad jecleen qaraarka u male cunugaad inuu bari waa mas'uuliyad ku saaran inuu barto waa mas'uuliyad ku saaran waa hooyanimadii aabanimadii kamid tahay waa caafimaadka cunugaada weeye bariiskii baastada kaliya ma u ahan caafimaad inuu cunuu barto barandhada in la shiido ayadana caafimaad bay u tahay sida soo ma aragtid waxay markaas cunug wuxuu arkaya waxaan uu ku agyaala baro adigi ba qaadayso xal afkaad gashanayso xalada yummy broccoli yummy veggie yummy kan cagaar macaan broccoli macaan cagaar macaan leedahay magacyadii hadii u si kala lahayn anaga u sameyn doona insha Allah dalkeenana ku abuuri doon ilaahay idinkiis ku dadaala walaalahayga Soomaalida soo sidaas sameeya taasna barta hadaa lacagtii haysid oo biyahan iyo waxaan aad u baahnayn waxaad tagaysaa supermarketka meesha disinfectant-ka oo baad tagaysaa waxaa soo gadanaysaa spray da kala there's one look for example wait hang on I gotta get this sorry I'm supposed to get ready everything but doesn't matter I'm human anyway I cannot be perfect everything So this is a tissue, this basic tissue. You can clean with the table, in the oven, dishes, everything. It will kill the germs and also make the oven clean and shiny, and also the table. It depends the type of table you have, dinner table or whatever. So this one you cannot use for children toys. If you go to the section, you cannot. It's already give you that, yeah? So what do is you go that section, it's the same section, or the children's section, and you buy the tissue or the spray. Talk about the spray for the kids, for a child, because the child is going to do this. You're going to put it in their mouth. So when you wipe with a chemical, they design you to use only the bathroom, then you killing the child. كانوا كلا وما استعمال كرتيد عنقاده إنه وحقود قديم هذا كان وحلوه تلقى لأبنك بالك الجكادة ودكتور وحلوه كرسده ماشي ويلاش اللي قد قضاء بالك قشن كل جريته ميسك المها كودا داديان عنتدي وح يدلك المه ماشي المها كل دلك إنه جيرمس كأوجت ترتيب أيا سدانو إجي هاي سدانو إجي هاي وقيني هاي برتين وحكا دقيا نظيف سائد بالنظيف وقا دقيا كمباني كان نسميه حدا استراليان كا أسحان وين بقى نسميه برودكتيجي ساو حيسينيا هدي بيج كيك لكن سان أو سمي لها قفك سومالي ولا الكياني أو قلين أنت ودقا أنت سومالي كمانانا بيج كا إيقا داوانا برودكتيجي هذا ربا إن أنتو صددك وحلوغو استعماله ولا لا أفكا سومالي أفكا إنجليش كاروا أنا كسو دايو
advertising kaas lacag igu sii lacag baan ku helayaa taajir baan ku noqon karaa ilmahayga wax ku siin karaa Soomaali wax ka siin karaa laakiin qofka Soomaaliga maba ogolaba wax walaalkiis oo qayro wado wax walba waa xun yahay gabadha halka waxay la u joogto u hadlays kaliya ku mashquulsan yahay cilmiga ku duugan kuma mashquul so taas waay tiishugaan oo kala marka asagoo kale oo waxa jiro liin laga sameeyay ya liin kan fiiri liina laga sameeyay fiiri samaaragt liina laga sameeyay liin ayaa laga sameeyay oo ilmaha loogu talagalay detolna waa laga sameeyay detol ilmaha laga sameeyay then chemical kale oo lagu daray intay ku qoran tahay chemicaladaas kale marka ilmaha haamay u tahay hadii ay afka ka gaarto gacanta dib ma lahan iyo haraga kore laakiin hadii afka ka gaarto marka that's why you need the organic one you design yourself and that is the lemon the baking powder and the salt and if you can find a little bit of Dettol but not much so you can see this what does that say is there see what is that picture kaas maxaa waay liintii ala socod halkan waxa ingiriisiga iyo waxyaalaha laga sameeyay menuga halkan wax walba way ku qoran tahay mujada hadaad akhrin aqoonin and it's not shame عيب maaha if you cannot read عيب ma you go to the store the supermarket whoever is there wearing the uniform the company is there to help you as a customer even if you want to read even if you want to know how many fat inside how many is not how many kilos inside what it is what type of product is everything that person is there to serve you so don't be ashamed if your friend is with you and you don't want at that time that friend of yours to find out she can read but she cannot read and you and her are mother so don't feel shame wait another day when you are by yourself go to the store and then ask the man excuse me please can you serve me then when they come to you that time is for you don't be ashamed of course you're not going to stand there 3 or 4 hours and you're wasting someone else that person to help of course yeah so you should realize also you have a few minutes so what do is you do can you please read this for me what do they make this from because you are using this product to your home and it's your responsibility as a mother and father to find out is this product going to harm my family my children you must find out that marka aad bahalkan gadato mas'uuliyad waxa ku saaran ah in aad ogaatid waxa halkan ku jira in laga sameeyay hadii aad adiga guriga ku sameeysan kartid iyo hadaad intaad hoosh inaad isku badin aad rabin aad si degdeg u rabtid inaad u soo gadatid oo sahal ah u isticmaasho kan because waxaad ka waxsanaysaa ama waqtigan ku siineen bulaadana tahay oo bisiyad waqtigan ku siinay biyo inta karkarisid aad cusbo fixiso liin inta bahalkan soo qaadatid labadan caag iyo bahalka isku keentid goobtid waqtigaas ka dhumayso qof degdegaya ta hadana markaad Soomaali u dhalatay hooyo waxa tahay kaligeed korinayso oo xaqi booski aabaha iyo booski hooyada iyo booski macalinka meel walba ku jirto ilaahay jannada nima geeyo ya Allah ilaahay nisi ragni naxariisto way ku jiraan laakiin way nagu yariin ilaahay ha noo badiyo insha Allah so marka waxaad sameeysaa kanaad soo gadanaysaa qof ninkana weydii ha dareemin ceeb ha dareemin inaad tahay hadduu qof kula socdo saaxiibka oo aad ka cabsanaysid inay isla kaaweynaysid ay ku dhahdo ma kana akhrinayna keenana ku akhrinaya ay niyada ka disho aad ka cabsanaysid sugo dad dukaanka waxa u shaqeeyo dad adiga kaliya inay ku macba ayaga qofka kula socdo ma ahan shaqadiis qofka shaqada iska la sii u tag waxa ku dhahdaa excuse me wax yar u tag waxa dhahdaa please sheeg bahalkan sida loo isticmaalo iyo waxa ku jiro iyo waxa laga sameeyay please sheeg hada luqada ku garan way saana dhehaysa please I want to know this what is about this inta kaliya hada garan ingredients menuga waxyaalaha laga sameeyay waxyaalaha ku qoran muxuu yahay maxaa loo isticmaalo hada waxaas dhan ka seenin su'aashaas dan waxa iska leedahay waxaan maxaa laga sameeyay ha ka cabsanin because waxaan rabaa inaan ana ku faa'iideeyo saan u helno ubad caafimaad leh
iyo oo dhulkan Soomaaliya la dhaho dhaxlo ubad caafimaad leh oo cudur qabiileed ku jirin oo maskaxdooda chemical aynay dhexgelin firfircoon oo dad jira inay dalka hooyo u noqdaan midba maalin lagu dilo ilaa maalintay helaan inuu dadkan walaalo yihiin maalintii ay ka gartaan ragga Soomaaliya maalintay ka gartaan diintu waa hal mid diintuna Ilaahay baa ummadan u siiyay aadamaha oo dhan bay u soo degtay Soomaali kaliya uma soo degin Arab kaliya uma soo degin balaadun oo dhan oo Ilaahay unta ku neefla dhan bay u soo degtay waxay u soo degtay xawayaanka in xaqooda la ilaaliyo waxay u soo degtay qalajisada yar ee albaabka ku dhagan guriga la qarxinay ama hoteelka la qarxinay xaqeeda u soo degtay diinta intay taa ka fahmayaan ya inaan korinaa rabnaa kuweena Ilaahay nasiibka u sii oo qurbahan u soo yaacay dalkiina wili ku nool qalbigoodu u qabiilku madoobay inaad korisid baan u rabaan waqtigeyga u soo geli so saa u samee ilmaha insha Allah I will invite whoever's want to talk now because I've been seeing a lot of people was telling me can I talk Okay, that person ما له هلين نصيب درو قف كحيلين سقطنا. بكتيريا ودي ما نسا مركز. وسقدي هرجب كوكراوي يقف وحي لبضة ويكحريان. Okay, قف كاس مقبنين أكيد جبايا. مركز أنا هلا يكلي ربان أنا هلا بكسو حج رجع صومالية ده وبدن. waxay jeceliin inay islaanta ka joojiyaan waxay hadlayso wax kale uma ordayaan iyo inay dibad joogto inay dibad aadi karaan ay ogaadaan kaliya fikrad inay dhiibtaan uma soo wactamayaan ayagoo dhan ma like halaga raali ahaado kuwa aan saas oo kale u soo wactamayn so insha Allah qofka ku xig Allah runtu jeceliya nabcaami jeclow هذا أمريكا هذا أستراليا أنا في الأمريكا أنا في السعودي في this هدان ده وهي وصورد لكن هدان دي لا مقدشة وين أنا إن مقدشة حاضر المقدشة وح انترستي الربان لكن دبدي مقلب سو قوادي حقه كلها أبجوكتي وحكي راسنا مد دبد جوكتي كعرريان أي قرسني وسو أرديان look that's the reason why they wanted you to buy إلو أمين waxay rabaan ay waqtiga inay kaaga dhumiyaan mid walba inuu kula hadlo uu raba fikrad uu ku dhahayo asagoo programkii hal saac iyo 2 saac ku jiro wuxuu ku leeyahay maxaa laga hadlay ma ahan inuu sambaatiye ka dirsado oo ku garto kaliya u soo galaya because wuxuu ku qanacsaneen xaaska Soomaaliya ag joogto iyo gabadha Soomaaliya joogto uu ku qanacsaneen qiimo ugu ma fadhiid mid dibad joogto ubad intuu ka dhalo uga tago buu goobaya ama midii ag joogtay inay intuu gabadha ila shaqeey dhaho ay hanti sida ku abuuraan dhulkooda ka soo saartaan ay dadaalaan ma jeedo inuu ka cararo ayada mid kale raadiyo dibad joogto oo hadhow midda dibadda joogto iska ag fadhiisanay ayadii qaxooti bay joogtaa ayadii xamar bay joogtaa biil ma haysato dawlad biil siisamada ubadkiisi baa 2 shilin buu dhiibayaa laga yaaba midna maba dhiibaba Allahu akbar midna maba dhiibaba عجيب اوكي قف كان كقول اصلا ما خبنين who else behind
okay